السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته daawadayaal kusoo dhawaada sheekadeena xiisaha badan ee kun habeen iyo habeen qaybteedii shanaad waxay noo mareysay ninka kalluumaysta ahaa oo shabaqiisa tuurtay mar afaraad kadibna culays awgiis uu markii hore qaadi waayay ilaa uu jiiday waxaana uga soo baxay sanduuq aad iyo aad u weyn sanduuqii markuu isdhahay qaad oo suuqa gee ayuu haddana qaadi kari waayay kadib mindi uu watay inta soo baxsaday ayuu sanduuqii furay ku xirnaaw janaalkeena Ashraf CJ kuna soo biir adiga oo subscribe saaraya si aad wax badan ugu faa'iidid mahadsanid balse wuxuu noqday sanduuq ibar ah ninkii asigoo yaaban ayaa waxaa sanduuqii ka soo baxay xoogaa qiiq ah kaasoo marba marka kasii dambeysay sii xoogaysanayay ilaa uu qiiqii daruuraha sabeeyey odaygii miskiinka ahaa aad ayuu ula yaabay uuna argagaxay kadibna qiiqii ayaa isqabsaday wuxuuna isku bedelay cirfiid aad iyo aad u weyn madaxiisana daruuraha maraayo halka cagihiisana dhulka ay yaalaan weyninkiisa darteed wuxuu lahaa madax sidii qubada u wareegsan iyo gacmo aad u qara weyn luga aad moodid inay yihiin darbiyada dhufayska ah iyo af aad iyo aad u dheer aadna u dhuuban sida shimbirka loo yaqaano cantaliyaaga sidoo kale wuxuu lahaa ilka aad moodid dhagxaan waaweyn waxaa ka muuqday boor iyo basaas weliba asigoo badda ka soo baxay ayay haddana waxaas oo boor ah ka muuqdeen markii odaygii kalluumaystaha ahaa arkay cirfiidkii weynaa ayuu jareeyey iyadoo ilkihii xataa isgaraaceen candhuuftana uu liiqi kari waayey meel laga jirana garan waayey cabsi darteed cirfiidkii markuu arkay odaygii kalluumaystaha ayuu yidhi laa ilaaha ila allah sulaymaan waa nebigii alle kadibna wuxuu sii raaciyey nebi allow ha idilin mar kale hadalkaaga ma khilaafi doono mana ku caasin doonee odaygii ayaa yidhi ma sulaymaan baad hadda nebigii allow leedahay iyadoo nebi sulaymaan geeriyooday 1800 oo sano ka hor annagoo joogno aakhiru zaman maxay tahay qisadaada maxaan halkan ku geliyey cirfiidkii markuu maqlay hadalkii odaygii ayuu yidhi hadday saas tahay bishaarayso odayahow odaygii ayaa ku jawaabay maxaan ku bishaaraystaa oo aad iigu bishaaraynaysaa cirfiidkii ayaa markaas yidhi dhimashadaada ku bishaarayso isla saacaddan inaan ku dili doono ogow dilista tan ugu xumayd weliba odaygii ayaa ku yidhi oo maxaad igu dilaysaa maxaan ku mutaystay in sidaas dhan la ii dilo wallaahi adigaa mutaystay in lagu dilo war maxaad igu dilaysaa anigoo halkan aad ku dhibaataysnayd kaa soo badbaadiyey oo kaa soo bixiyey abaalkayga ma waxaad ka dhigaysaa inaad i disho cirfiidkii ayaa ugu jawaabay warkaas oo dhan ka bax ee dhimashada noocee ayaa doonaysaa adiga uun dalbo odaygii ayaa ku yidhi waxaan ku weydiinayaa muxuu yahay dembigayga oo maxaan kaa galabsaday sidaanna aad iigu abaalmarinaysaa cirfiidkii ayaa ku yidhi haddaba anigaa kuu sheegayay i dhegayso odaygii oo aad u cabsanayo ayaa ku yidhi iisoo gaabi hadalka naftayda lugaha ayay soo maraysaaye cirfiidkii ayaa markaas hadalkii ku bilaabay waxaad ogaataa odayahow inaan aniga ka mid ahaa jinnigii maariqiinta ahaa waxaana ku caasiyey hadalkii nebigii alleh ee sulaymaan calayhi salaam maalintii dambe ayuu wuxuu ii soo diray wasiirkiisa aasif bin barqiyaa si qasab ah ayuuna igu waday wuxuuna ii geeyey nebi sulaymaan waxaa la ii hor istaajiyey nebi sulaymaan markuu ii arkay nebi sulaymaan wuu iga acuudubilaystay wuxuuna ii soo bandhigay iimaanka alleh iyo inaan hadalkiisa adeeco laakiin waan diiday markaas ayuu dalbaday sanduuqan wuuna igu xiray asigoona igu qatimay faraantigiisa magaca alle ee weyn ee haddaad alle ku bariso ku ajiibayo ayuuna ku qoray wuxuuna amar ku siiyey jinnigii adeecsanaa inay igu tuuraan moolka badda wayna igu tuureen markaan badda ku dhex xirnaa muddo 100 sano ayaan waxaan ku qayliyey qof kasta oo iga soo bixiyo meeshaan inaan hodan ka dhigi doono inta noloshiisa ka hartayna uu raaxaysan doono 100kii sano ayaa ka soo wareegatay meeshana qofna igama uusan soo bixinin markaas ayaan haddana ku qayliyey qof kasta oo iga furo inaan anna u furi doono kaydka dhulka oo dhan 100 sano ayaa ka soo wareegatay haddana qof iga furtay waan waayey kadib markay ka soo wareegatay 400 oo sano waxaan ku qayliyey qof kasta oo iga furo waxaan u samayn doonaa wax kasta oo iga codsado mar kale ayaan waayey qof iga furto kadib waan xanaaqay xanaaq aad u daran waxaana dhahay qof kasta oo iga furo isla saacadda uu iga furo ayaan dili doonaa anigoo dooransiinayo sidii aan u dili lahaa kadibna adiga ayaa iga furay ee niyeyso sidee jeceshahay inaan kuu dilo markuu odagii kalluumaystaha ahaa maqlay hadalkii cirfiidka ayuu ku yidhi waa cajiib wallaahi hadda qofka aad sugaysa inaad disho ee meesha kaa furay ma aniguu noqday
asagoo hadalkiisa sii wato ayuu ku yiri iska kay cafi Allah ku cafiye jinnigii ayaa ku yiri waa qasab inaan ku dilo si aan ballanteeda u oofiyo ee waxaad rabtid intaadan dhiman ka hor ii sheeg si aan kugu xaqiijiyo waana ballan ma ku dilaayay ilaa aan ku xaqiijiye odaygii ayaa xoogaa fikiray kadibna wuxuu ku yiri magaca alle ee weyn ayaan kugu dhaariyay adigoo intaan la eg sidee ku gashay sanduuqan aadka u yar cirfiidkii markuu maqlay magacii alle ee weyn ayuu gariiray markaas ayuu ku yiri ma waxaad rumaysan laadahay inaan sanduuqan geli karo odaygii ayaa ku yiri waa wax aan macquul ahayn waxaaba shaki iiga jira inaad sidaad sheegayso sax tahay oo sanduuqan aad ka soo baxday jinnigii ayaa ku yiri haddaba aniga ku tusaayay arag kadib Shahrazad waxay ogaatay in subaxii la gaaray sheekadiina way joojisay habeenkii afraad ayay u waday oo meeshii ayay ka sii bilowday markaas ayuu jinnigii intaqiiq iska dhigay ayuu sanduuqii ku aruuray markuu wada galay ayuu odaygii kor uga xiray asigoona shaabadii ku qabtay kadib ayuu odaygii jinnigii ku yiri waa tookadaada niyeyso dhimasho nuuce ah ayaad jeclaan lahayd inaad ku dhimato si aan badda kuugu tuuro mar kale cirfiidkii markuu hadalkaas maqlay ogaadayna in sanduuqii mar labaad lagu xiray ayuu yiri waan ku baryayaa walaalow badda mar labaad ha igu celinin odaygii ayaa ku yiri imise mar ayaan ku baryayay aniga oo aad iga diiday waliba anigoo meeshan aad ku jirto kaa soo badbaadiyay abaalkaygan waxaad ka dhigtay inaad idisho cirfiidkii ayaa ku yiri iga fur walaalow waan ku wanaajin doonaa waxaad rabtana waan kuu samayn doonaa odaygii ayaa ku yiri been ayaad ii sheegaysaa waxaadna tahay jinni naclad ku dhacday mana laga yaabo inaan halkan kaa furo waxaadna ogaataa aniga iyo adigaba inaan la mid nahay boqorkii la dhihi jiray Yoonaan iyo ninkii xaakimka ahaa ee la oran jiray Rooyaan cirfiidkii ayaa wuxuu ku yiri maxay ahaayeen boqor Yoonaan iyo xaakim Rooyaan maxayna ahayd sheekadooda odaygii ayaa ku yiri ma waxaad rabtaa inaad ogaato sheekadii boqor Yoonaan iyo xaakim Rooyaan cirfiidkii ayaa ku yiri haa ee bal ii sheeg muxuu ahaa xaalkooda wuxuu u bilaabay qisadii boqor Yoonaan iyo xaakim Rooyaan odaygii kalluumaysta ahaa wuxuu hadalkiisa ku bilaabay waxaad ogaataa cirfiidyahow waa hore oo muddo aad u fog laga joogo inuu jiray boqor u talin jiray magaalooyin ka mid ah dhulka Furus iyo dhulka Roomaanka waxaana la dhihi jiray boqor Yoonaan wuxuuna ahaa boqor hanti badan iyo ciidan aad u xooggan haysta laakiin jirkiisa wuxuu lahaa baraskaasoo ay daaweyn waayeen dhammaan dhaqaatiirtii isku dayday inay daaweeyaan waxaana wax u tari waayay daawooyinkii iyo dhammaan wax walba oo la siiyay boqorka wuxuu dhibsaday oo qaati ka taagnaa cudurkan baraska ah ee ku dhacay iyadoo xaalka sidaas yahay ayaa waxaa magaaladii soo galay nin xaakim ahaa aadna u da'weynaa waxaana la dhihi jiray xaakim Rooyaan wuxuu aqoon u lahaa kutubadii Giriiga Farisiga Roomaanka Carabiga iyo Saryaaniyada waa luqadii uu ku hadli jiray Nabi Ibraahim calayhi salaam sidoo kale xaakim Rooyaan wuxuu yaqaanay cilmiga caafimaadka kan xidigaha iyo sida looga faa'iideysto dhamaantood wuxuu kaloo yaqaanay sida dadka loogu daaweynta dabiiciga ee dhirta asigoo sidoo kale ahaa faylasuufi sidaas darteed ayaa loo dhihi jiray xaakim Rooyaan markuu muddo magaaladii uu joogay ayuu wuxuu maqlay arinta boqorka iyo inuu baras qabo wax daaweeyana la waayay markaas ayuu xaakim Rooyaan u tagay boqorkii wuxuuna ku yiri boqorow waxaan awoodaa inaan ku daaweeyo anigoo wax daawo ah ku siinin wax dufan ahna kuu marinin boqorkii arintaas aad ayuu ula yaabay wuxuuna ku yiri haddii aad sidaas sheegayso samayso waxaan ku sii doonaa inta noloshaada ka dhiman wixii aad ku noolaan lahayd waana ku sharfi doonaa waxaadna markasta ii ahaan doontaa mid aad iigu dhow xaakim Rooyaan ayaa ku yiri waxaan rabaa in teendho la ii dhiso adigana berri aad soo diyaar garowdo waxaad imaanaysaa barxadda beertaada xaakimkii wuxuu sameeyey markii teendhadii la sameeyey ayuu wuxuu meesha keenay kubad aad u yar iyo ul asigoo daawooyin kala nooc ah mariyay subaxii markii la gaaray ayaa waxaa yimid boqorkii oo ay la socdaan madaxdii dawladdiisa sida wasiiradiisa saraakiishiisa ciidanka abaanduulayaashiisa iyo wixii la mid ah markaas ayuu xaakim Rooyaan u sheegay boqorka in usha uu qabsado kadibna kubadda uu ku garaaco intii awoodiisa ah maanta dhanna uu sidaas sameeyo wuxuuna ku dhahay markaad dareento in dhididkaa yimid dhiigaagana kacay waad ordaysaa waxaadna tegaysaa musqusha si degdeg ah ayaadna u qubaysanaysaa kadibna waad seexanaysaa boqorkii sidii ayuu sameeyey siduu kubaddii marba intii awoodiisa ah u tuurayay u garaacayay ayuu dhidid badan ka imaaday wuxuuna xaakimkii boqorka u ishaaray inuu musqusha aado
sidii ayuuna ku aaday wuuna soo qubaystay asigoo seexday isla markiiba ilaa waa barigiina hurdaayay. subaxii markuu soo kacay ayuu boqorkii muraayadda isku fiiriyey, balse midda cajiibka ahayd ayaa waxay tahay inuu noqday qof saliim ah oo aan haba yaraatee wax baras ah qabin. boqorka arrintaas aad ayuu ugu farxay, wuxuuna u wacay xaakimkiisii asigoo soo dhowaystay, wuxuuna siiyey hadiyado aad iyo aad u badan, lacago iyo waxyaabo qaali ah. wixii maalintaas ka dambeeyey mar kasta oo xaakimka boqorka u tago wuxuu siin jiray waxyaabo muhiim ah oo xitaa uusan siinin weligiis dowladda kuweeda ugu sarreeyo. nimco kasta oo bani aadam la siiyo waxay leedahay xaasid, waxaana midaas aad uga xumaaday mid ka mid ah wasiiradii boqorka, kaasoo dareemay in boqorka dhanka xaakimka u batay wuuna ka maseeray. sidaas darteed wuxuu go'aansaday inuu xaakimkan ka takhaluso. wuxuu u tagay boqorkii wuxuuna ku yidhi, boqorkaygiyow, adiga waxaad tahay qof dadka wanaajiya, inaan kuu naseexeeyana waa igu waajib. sidaas darteed arrin ayaan rabaa inaan kaala hadlo, haddii aad fasax ii siiso waan kuu sheegi doonaa. boqorkii ayaa hadalkii inta dhibsada yidhi, waa maxay naseexadaada? wasiirkii wuxuu ku yidhi, boqorow, dadkii hore waxay dhaheen qofkaan wax soo socda ogeyn wax joogaana ma garan karo. waxaana dareemay in boqorka cadowgiisa uu wanaajinayo halkii uu ka takhallusi lahaa, anigana waan kuu cabsanayaa. markaas ayuu boqorkii yidhi asigoo aad u xanaaqay, waa kuma qofka cadowga ii ah misna aan wanaajinayo? wuxuu wasiirkii yidhi, boqorkaygiyow, hurdada ka kac, aniga xaakim rooyaan ayaan ka hadlayaa. boqorkii ayaa ku yidhi, miyaad waalatay? xaakimkan waa ninkii i daaweeyey, wuxuuna ii sameeyey waxay dadkoo dhan ii samayn waayeen. waana kuu jeedaa oo waad ka maseeraysaa, ee iimaankaaga sugo oo odaygaas miskiinka ah faraha ka qaad. mise waxaad rabtaa inaan dilo xaakimka kadibna aan ka shalaayo siduu u shalaayay boqor sindiyaad markuu dilay shimbirtiisa? wasiirkii ayaa ku yidhi, sidee ku dhacday arrintaas? shahrazaad ayaa dareentay in la gaaray subaxdii, wayna joojisay sheekadii. habeenkii kale markii la gaaray ayay halkeedii ka sii waday. markuu wasiirkii weydiiyey sheekadii boqor sindiyaad iyo shimbirtiisa ayuu boqorkii hadalkiisa ku bilaabay. waxaa jiray boqor ka mid ah boqorradii reer Faris, kaasoo aad u jeclaa safarka iyo ugaarsiga, wuxuu kaloo jeclaa tamashlaynta iyo dalxiiska. boqorkaas wuxuu lahaa shimbir uu aad u jeclaa, meel kastana u raaci jirtay. maalin ayaa waxaa dhacday in boqorkii ugaarsi u baxay, kadibna waxay arkeen deero. markaas ayuu boqorkii askartiisa ku yiri, afarta dhinac ha laga soo maro, qofkii ay dhinaciisa ka fakatana ha ogaado in qoorta laga goy doono. markaas ayaa deeradii la hareereeyey, kadibna waxaa dhacday in deeradii dhinaca boqorka aaday ayna ka baxsatay. askartiisa ayaa isfiiriyeen oo bilaabay inay hoosta wax ka sheegaan. kadib ayuu boqorkii wasiirkiisa u wacay kuna yiri, maxay hoos ka leeyihiin? wasiirkiisa ayaa ku yiri, waxay leeyihiin boqorka ayaa dhahay qofkii ay dhinaciisa deerada ka baxsato ayaa qoorta laga goynayaa, xaggiisa ayayna ka baxsatay. markaas ayuu boqorkii xanaaqay, wuxuuna ku yiri, waxaa igu ballan ah inaan keeno deerada. kadibna asiga iyo faraskiisa iyo shimbirtiisa ayaa baxeen. wuxuu socdaba wuxuu arkay deeradii, wuxuuna sii daayay shimbirtiisa, taasoo iyadana indhaha kaga dhigtay deeradii si uu boqorka u qabto. kadib ayuu boqorkii deeradii qabtay, markaas ayuu qalay oo maqaar siibay, wuxuuna soo qaatay maqaarkeedii iyo madaxeedii. waqtigana wuxuu ahaa mid aad u kulul. cabaar markay socdeen ayay oon dareemeen. markaas ayuu boqorka hareeraha fiiriyey, wuxuuna arkay geed ay biyo ka soo burqanayaan. boqorkii ayaa ubadiisi la soo baxay oo biyihii ku shubay, wuxuuna damcay inuu cabo, hase yeeshee waxaa ku soo booday shimbirtiisa oo ka daadisay. boqorkii ayaa isdhahay, shimbirka asaga ayaa oomane sii marka hore. biyihii ayuu mar kale soo shubay oo shimbirtiisa hoos dhigay, balse shimbirtii mar labaad ayay daadisay. kadibna boqorkii oo yaaban ayaa mar saddexaad soo shubay biyihii oo faraskiisa siiyey, balse waxaa mar kala daadisay shimbirtiisa. markaas ayuu boqorkii aad u xanaaqay, asigoo shimbirtiisa ku qayliyey, wuxuuna ku dhahay, wallaahi haddaad mar kala daadiso seeftan ayaan kugu kala jarayaa. wuxuuna soo shubtay biyihii asigoo cab isleh ayaa haddana waxaa daadisay shimbirtii. boqorkii oo xanaaqsanaa ayaa shimbirtiisa seefta ku dhuftay, dhulkana way ku dhacday. balse wuxuu arkay boqorkii shimbirkii oo madaxa wax ugu ishaarayo, asigoo nafta kasii baxayso sida inuu leeyahay geedka korkiisa fiiri. kadib ayuu boqorkii geedka korkiisa fiiriyey, mise waxaaba saaran abeese aad u qaraweyn, waxaan shubmayana waa sunteedii. kadib boqorkii aad ayuu uga shalaayey, iskana ooyey, shimbirkiina halkii ayuu ku dhintay. marka wasiirow, ma waxaad rabtaa inaan noqdo sidii boqorkaas oo kale oo aan dilo ninkii i daaweeyey kadibna aan ka shalaayo? la soco qaybta xigta sheekadeena xiisaha badan ee kun habeen iyo habeen.